السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتين اسكسو نقضوا عن أو حيصة إله سبحانه وتعالى ميلول باد كلا جوجتان أما ميلول بان كلا جوجنا الله إنه وذا حفتيه وحول بان جعلنا هاي وخير إنه أهنا الله دمانتين هاي إنه وذا السيو waxaa jira saddex shuruudood oo keliya si aad ugu guulaysato wax walba aad rabto dabcan bini aadan ayaynu nahay oo dhammaanteen waxaynu doonaynaa inaan wada guulaysano raadkeenana dunida dhigno adduunkana wax dadka anfacaya aan kaga tagno aakhirana aan mirihiisa gurano qof walba oo bini aadana ayaa taa doonaya waxaa jira saddex shuruudood oo keliya si aad ugu guulaysato wax walba aad rabto kow marka hore go'aanso waxa aad nolosha ka rabto dabcan maanta waxaan arkaynaa dhallinyaradeena badankood inay social media sidii fadhi ku dirir u fadhiyaan inay makhaayadaha fadhi ku dirir u fadhiyaan inay meelaha iska taagtaagan yihiin why because ma garanayaan nolosha waxa dhabta ah ay doonayaan so adiga marka hore go'aanso waxa aad nolosha ka rabto labo go'aami qiimaha aad rabto inaad ku bixiso waxyaalaha aad rabto inaad hesho saddex oo ah tan ugu muhiimsan in aad go'aansato in aad bixiso qiimaha mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee guusha waa marka aad go'aansatay waxa aad rabto nolosha marka aad go'aansatayna waa tayada waa qiimaha rabitaankaaga waxaas aad goosatay waxaas aad jamatay inta rabitaan ay kuu hayso gaajo kuu hayso aad doonayso ayaad adigana qiimaheeda guranaysaa dadka guulaystay waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan qiimaha wax kasta oo ay tahay iyo inta ay qaadanayso ilaa ay ka gaarayaan natiijooyinka ay rabaan qof kasta wuxuu rabaa inuu guulaysto qof kasta wuxuu rabaa inuu caafimaad qabo faraxsanaado weliba qani ama taajir noqdo laakiin dadka intooda badan ma rabaan ama diyaar uma aha inay bixiyaan qiimaha waxa wanaagsan ay rabaan marmar waxaa laga yaabaa inay diyaar u yihiin inay bixiyaan qayb ka mid ah qiimahaas laakiin ma rabaan inay wada bixiyaan ama diyaar uma aha inay bixiyaan qiimaha oo dhan mar walba dib ayay isku celiyaan had iyo jeer waxay samaysanayaan ama ay samaystaan cudurdaar ama inaysan naftooda ku edbin inay sameeyaan wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay u gaaraan himiladooda bixi qiimaha oo dhammaystiran waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiinaysid oo ah sidee baan ku ogaanayaa inaan bixiyo qiimaha oo dhammaystiran wixii aan jamtay wixii aan rabay sidee baan ku ogaanayaa aan ku helayaa way fududahay waxaad ku ogaan kartaa inaad eegtid isbeddelka nololeed ee ku yimi noloshaada markii aad bixisid qiimaha oo dhammaystiran maxaa iska beddelay dhaqaalahaagii maxaa iska beddelay aqoontaadii maxaa iska beddelay nolol maalmeedkaada jawaabta aad heshid ayaa ka turjumaysa qiimaha inta aad bixisay guushu ma ahan sida maqaaxi aad bixinaysa lacagta markii aad cuntada ku raaxaysato aad cuntada cuntid kadib waa sidii cafeteria oo kale aad dalbanaysid wax walba aad rabtid laakiin ay tahay inaad bixisid qiimaha inta aadan cunin ka hor guushuna waa sidaas oo kale waa inaad bixisid qiimaha juhdiga rabitaanka ay mudan tahay inaad ku heshid guushaas markaas kadib ayaad ku raaxaysanaysaa guushii aad jamatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu